Crawford wixii say guddiga sare ee golaha fulinta G6 ee shirweynaha Khaatumo iyo dhammaan isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa saaka kormeer indhaindhayna ku tagay howlka loogu qabanayo shirweynaha Khaatumo iyo goobaha loogu talagalay inay degaan iyo marti sharafka ka qaybgalaya shirweynaha ka dhici doona degmada Taleex. guddigan ayaa waxay mid u arkeen hoyga loo asteeyay in ay degaan ergooy iyo marti sharafta ka qaybgalaya shirweynaha Khaatumo. kadib boqoshadaas waxay guddiga iyo qaar ka mid ah ay isimada ayaa waxay booqday howlka weyn ee loo asteeyay inuu ka qabsoomo shirweynaha waxayna halkaasi warbixin kaga dhageysteen qaar ka mid ah xubnaha qabanqaabada ee qaabilsan dejinta ergooyinka ka qaybgalaya shirweynaha. sidoo kalena waxay halkaasi warbixin kaga dhageysteen madaxa ciidamada ammaanka sugi doona shirweynaha Khaatumo laba ee ka dhici doona degmada Taleex. waxaan halkan sarafiya inaan ka soo jeediyo in yar warbixin ah oo qabanqaabadii gudaha ah oo muddo aanu soo wadnay. marka ugu horeysa aan afka deegaanka Taleex ku hadlaya waxaanu idinka mahad celinaynaa oo aanu ku faraxsanahay oo aanan weligayba ilaaweynin sidoo quruxda badnayd ee dhulbaanta u go'aansaday inuu Taleex ku shiro. aadiya aan idinka mahad celinaynaa mar labaad. inta waxa dheer run ahaantii waxaan kaloo aan idinka mahad celinaynaa imaatinka aynu maanta howlkan shirarka Khaatumo laba aan iskugu nimi isimadeennii waxaanu qaadanay go'aan ah in aanu martida u samayno hoy iyo meel ay ku shirto. hoyga waxaanu ka bilownay inaanu aasaasno howlkan aynu maanta fadhino oo inta uu ka kooban yahay aynu aragno. waxaanu bilownay 20kii bisha. waxa kale aanu samaynay 400 oo ergey iyo goobjoogayaal iskugu jira. malaha ergadu inta waa ka yartahay shirkuye inaanu dejin u samayno 100 teendho oo aan ugu talagalay 350 qof inay degaan baanu samaynay. 12 maalmood baan waxaan ku hirgelinay howlkan aynu aragno iyo teendhooyinka. waxaan jeclahay inaan soo koobo arrimaha security-ga oo meesha ugu horeyn aniga Cabdishiis Ismaaciil baa leeyahay. waxaan imi 2 bilood ka hor habeenkaamina shaqadii baan bilaabay. wixii aan la imina wixii aan bilaabayna waxaan meesha la miibahay oo ii diyaarsana anoo ku xisaabtamaya duruufta jirta. nin chaachina ma joogo oo xukuumadda dambilaha waxaan u fikiray inaan qaab leeyahay situational criminal prevention and sabab oo ah qaab ka duwan in qofka loo adeegsado qaab kale leeyahay criminal justice system. kadib waxa halkaasi laga jeediyay khudbado iyadoo ugu horeen halkaasi ka hadlay Dr. Ali Khaliif wafdigii hawd ka yimi Buuhoodle odayaasha garaad Cabdullaahi Garaad Soofe iyo Garaad Salaadaan Quraale iyo Xuqaasha iyo odayaasha waxqad ragga doorka hawd ka yimi magaalada Taleex ee leedo ku soo dhaweeyay annaga ku soo dhaweynayna waxa farxad gadigaya loo wada ah waasatan qoliyaha iyaga qurba joogta ah waxaan xusuustaa Allah u naxariistay Cabdi Horaad Cabdi Kooriye Jaamakiiso oo Taleex makhaayadda Taleex ama hotelka Taleex ee Muqdisho ku yaala in mucaaradnimo isaga dhashay buu ahaa. waqtigii ay ku dhaweyd xukuumaddii Soomaalida ee qarankii Soomaalidu inuu shafka dhulka ku dhufto iyo oran jiray dhulbaanta magaaladan ka baxa haddii aydan ka bixin wala Suudaan baad ka soo wareegi doontaan. horta Cabdi Allah u naxariistay annaga uga marxaati kacaynata annaga ku dhawaanay Suudaan inaan ka soo wareegno. waxaan u maleynayaa baahida loo qabo dhulbaanta inuu tashado oo isku tashado oo uu warla'aani ma hayso meesha dhulbaanta yaallo. waxaan u maleynayaa war sugan baa laga wada hayaa inkastoo loo kala badsado talaan baa dadka haysa. ta ugu horeysa ee waajibka nagu ah ee dhaqan Soomaali iyo mid Islaam iyo mid ibn aadannimo oo nafaraya waxa weeye ummadeena inaynu
uga tubno kana badbaadino darxumada maanta haysata oo taariikhda inoo gala inay halka ka dhacdo halka aynu ka gaadhno laa ikraaha fi diin cidna lama khasbayo laakiin dani waa seeto marka ninkii baanaaya lagu fasax ninkii tala dhulbahantahayow yaama tala soomaaliyeed oo lagu hirtahayow dahaad burhaanak yeenan ishaaraamin siyaasadana in dhaweyd waxaa loo bartay inuu xoogaa kalsooniya isku qabta oo guri madow xoogaa wax isugu sheegta warbal guryaha madowna aan ka soo baxno danteennu geedkan bardaha hoostiisay maanta taallaaye war waxa aynu qabno haddii fooli timaadda guda qarsay dhimaye aan tashanno aynuna ku dhiiranno inaynu waxaa laynooga baahan yahay oo shacbigeennu inaga sugayaa furitaanka shirweynaha khaatumo laba oo la filayo maalmahan soo socda inuu ka furmo degmada Taleex ayaa waxaa si weyn ugu soo qulqulaya magaalada Taleex ergooyinka kala imanaya gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas oo doonaya inay ka qayb galaan shirweynaha ka furmi doona degmada Taleex waa Cadnaan Saalax Maxamed degmada taariikhiga ee Taleex.